Madaxweyne Dani oo casharka bixidiisa ay adag tahay u dhigay Madaxweyne Xasan Sheekh. Puntland oo ku tallaabsatay mid ka mid ah guulihii ugu adkaa ee ay gaaraan madax Soomaaliya. Maxaa ka dhacay magaalooyin ay ugu horreyso Garowe? Saddex degmo oo Puntland ka tirsan oo cashar lama ilaabaana dhigay. Warbixin muujinaysa horumarka ka jira dowladda Puntland iyo shacabkeeda ayaan soo gudbinaynaa. Balse marka hore, muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada. Maamulka Puntland waxaa ka dhacay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu xiisaha badnaa, waxaana doorashooyinkaasi ay ka dhaceen 3 magaalo oo ka tirsan maamulka Puntland. Fariintuse waxay ku socotaa dowladda dhexe oo ugu horeeyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida la rumaysan yahay. Dr. Dani ayaa diray fariin adag oo falcelinteeda laga sugayo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xamar oo ay ka taliso dowladda federaalka ee Soomaaliya weli kama aysan dhammaan khilaaf sokeeye, amni darro, qarax iyo waxyaabo la mid ah. Hase ahaatee, Puntland waxay ku tallaabsatay horumaro la taaban karo. Dadweynaha degmooyinka Garowe, Dangorayo iyo Godob Jiiraan ee gobolka Nugaal ayaa saaka u dareeray doorasho qof iyo cod ah oo golayaasha deegaanka dowladda Puntland ah. In ka badan 64,000 oo qof ayaa codeynaya, waxayna codeyntu ka dhacaysaa 80 goobood oo ku yaal 3 degmo. Waxaana doorashada ku tartamaya 8 xisbi oo ay u sharaxan yihiin min 431 murashax oo ku tartamaya 81 kursi. Doorashada ayaa bilaabmatay 6 aroornimo ama subaxnimo, waxaana goobaha codbixinta ay xirmi doonaan 6 maqribnimo sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka Puntland. Guud ahaan goobaha doorashada ayaa laga joojiyay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka marka laga reebo kuwa shaqada ku jira ee u xilsaaran howlaha doorashooyinka. Halka marka ay joogto, waxaa la isweydiinayaa Soomaaliya qaybaha ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay Puntland hore ay u dhaqaaqday ee Xamar iyo Koonfur maxaa ku fadhiya. Waxaa lala tacaalayaa amni darro iyo sidoo kale xasillooni darro. Waxaa sidoo kale jirta canshuuro xad dhaaf ah oo dadka Xamar laga qaado. Xasan Sheekh ayayna tani tahay fariin ku maqan sida siyaasiyiin badan barahooda bulshada maanta ay ku soo qoreen. Puntland iyo Dani inta caqliga u saaxiibka ah way u hambalyeeyeen, waxayna qireen in Puntland tallaabo adag oo ay Soomaalida inteeda kale ku taagsan weyday ay ku tallaabsatay. Guulaha isdaba joogga ah ee Puntland gaartay waxaa ka mid ah ammaanka magaalada Garowe oo aad loo adkeeyay iyo guud ahaan deegaanada kale ee Puntland. Marka laga reebo Daacishta ku sugan buuraha Galgala iyo buuraha Goolis oo ah silsilado, ma jiraan wax amni darro ah oo ka dhaca Puntland, waxayna taasi muujinaysaa inay ku tallaabsadeen horumar weyn. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo sanadan dib loo doortay ayaa isaguna la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah hoggaanka ugu hufan kuwa Soomaalida ah, isla markaana dadkiisa si hufan ugu adeega. Puntland hadda waxay gaartay guul siyaasadeed oo ay gaari weysay dowladda dhexe oo iyadu ka dhaqaalo badan, ka ciidan badan, shacab ahaana aad uga badan. Xasan Sheekh weli waxaa maamulkiisa lagu hoos dulminayaa dad badan, waxaa la dhacayaa dhulalka danta guud. Sabab la'aan ayaa bulshada loo dilayaa. Qubuuro qodis, nidaam doorasho aan jihaysnayn, baarlamaan iyo xukuumad lagu sheegay fadhiid, iyo caqabado aan xisaab lahayn ayaa ku geedaaman. Danise bannaanka ayuu ka taagan yahay, waxaase la rumaysan yahay 2026 in Madaxweyne Dani uu noqon karo madaxweynaha Soomaaliya bacdama tijaabadii Puntland uu ka soo baxay. Haddaba daawadow, adigu arrinkaas ma kuu muuqdaa? Danise ma u aragtaa inuu yahay nin siyaasad ahaan guulaystay bacdama doorashadaasi qabashadeeda uu isagu dhidibka u aasay? Aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb. Muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada. Sidoo kale ku soo biir bartayda Facebook. Aad ayaad u mahadsantahay daawade.